بسم الله الرحمن الرحيم. خياري سو دواada ku soo dhawaada Dr. Botan algebra dadka qaar ayaa waxayna weydiisteen dhalinyarada waxay yiraahdeen ma soo karno intaad ka soo gaaraysa algebra halkaaga fractionka iyo soo gurguuranaysid marka waxay yiraahdeen meelaha qaarkood oo adag baan ku weydiiyay xoogaan noo dhibtaan ku weydiinayna noo soo gali marka waa kuwan qaar kamid ah waxyaabaha ugu qaabka daran marmarka qaarkood waxaa kamid ah inequality waxa la yiraahdaa waa wada taqaanaa dad aqoonta xisaabta hoose in aad weeyo waa xisaabta aan lahayn isla egta aan ka shaqeyno xabad ka shaqee xalli graph the inequality waxaad graph garaysaa 5x plus 4y is greater than 20 waxay ka weyntahay 5x iyo 4y waxay ka weyntahay 20 marka tilaabada ugu horeysa sida u fudud loo sameeyo ugu dhaqsaha badan waxa weeye inaad marna x ka soo qaado ever marna y ka soo qaado ever aynu ka soo qaadno x ka for example hadaynu x ka ever ka soo qaadno color kala soo qaadano hadaan x ka ever ka soo qaadno x ka hadaan ever ka soo qaadno 4y waxay noqonaysaa 20 so y waxay noqonaysaa 5 right y waxay noqonaysaa 5 haddii aan y ever ka soo qaadnana x to waxay noqonaysaa 4 so x to 4 iyo y da oo 5 aan graafkeena ku sameeyno graafkeena waa kan noo diyaarsan yahay so x ka booskiisii waxaan tagaynaa waxaan niri 4 so waxaan tagaynaa 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 waa kan y da waxaan tagaynaa 5 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 halkaas aan tagnay 5 iyo maxaan tagnay iyo 4 noo dhima kaliya in line-ka xariiqda isku xirno laba dhibcood baa nooga filan xariiq saadogtiin aynu isku xirno xariiqdii aan cagaar soo qaadano xariiqda dan isku xirno waatan aan ma toosna xoogaa iska toosin xariiqda xoogaa yar okay waa inay labada dhibcood xariiq soo gashaa deena gelin macnaheedu ma toosna way labada dhibcood waa inay xariiqdu gashaa marka xariiqdii waa samaysantay waagi hore isla egtahay sheekadu iska sahlanaan jirto xal jiray waa xalliye waa ka graafki laakiin hadda sheekadu sidii waa ka bedelantahay waayo waxa la leeyahay waxani waa xalku ma aha line waa area waa qayb dhan marka waxa la isweydiinayaa tolow xalku ma qaybta ka koreysa xariiqda soo qaatay brushka hadana mar kale ad ma qaybta ka koreysa xariiqda kala soo qaat ma qaybtan ka koreysa xariiqda aan xariiqdi waatan qaybtan ka koreysa halkii noqonaysa mise qaybtan ka hooseysa taas la isweydiiyaa sida u dhaqsaha badan loogu fudud waxa weeye waxaad adigu istaagaysaa barta eberta istaagaysaa halkaas taagatahay halkaas x waa eber y dan waa eber baadama ay labada area maxaad samaynaysaa eber baad gelinaysaa booska x iyo y da waxaad fiirinaysaa warku inuu run yahay aan aadna waatan booskan eber baad gelis ka soo qaad eber baan gelinay booskan eber baan ka dhignay ka soo qaad inta markuu tirtiran eber bay noqotay eber haday noqotay warkaan fiirinaa eber way ka weyn tahay 20 rumba waa been eber kama weyna 20 eber way ka yar tahay 20 marka dhanka ebertu jirto warku waa ka beenoobay dhanka ebertu jirto waa halkan xariiqdi waatan line-ka dhinacaan ba eber jirta warku waa ka beenoobay dhinacaan warkii uu ka beenoobay marka xagee baynu xariiqaynaa dhanka kale baan xariiqaynaa area-da ka koreysa xariiqda ayaanu calaamadaynayna xariiqda marinaynaa halkaas ayaa waxay noqonaysaa halkii markaas solution-kii waxa halkii line-ka inta ka koreysa solution-kii halka wixii ka hooseeya waa la diido waa been marka halkii equation-kaas waa line-ka dushiis aynu sameeyno mid kale xoogaa anoo isku dayay time inaan ku siiyo aad bal adiguna isku fiirisid aynu sameeyno isku dayno midan xalli adiga oo micnaha graph garaynaya homework iska damida kore number 2x plus y is greater or equal to 6 2x plus y is greater or equal to 6 mid fudud waxaan rajaynaya inaad fududayso bobsiis haye ready go
هي isla dariiqii baa raacaysaa xoogaa baad iska joojin kartaa fiidiyoga isla dariiqii haddaad raacid maxaa arkaysaa waxaad isweydiinaysaa marka ugu horreysa waxaad leedahay war heedhe waaba gartay haddii bal x-ka eber haddaan ka soo qaado waaydu maxay noqonaysaa waaydu 6 bay noqonaysaa haddaan x-kaas eber ka soo qaado waaydu maxay noqonaysaa 6 haddaan waaydu eber ka soo qaadana x-ku wuxuu noqonayaa 2 6 loo qaybiyo 3 marka waa 6 iyo 3 waaydu waa 6 6dii aaw 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 iyo 6 halkaas oo malaynaya 1 iyo 2 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 kor waxaa soo qaadna wali 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 wali hal baan ku daraynaa 1 iyo 2 iyo 3 4 iyo 5 iyo 6 hal mar ku darno hal mar 6 halkaa way xariiqda booskaas way booska 6 ah oo booskaas aynu geedda ku dhajinay weeyaan booskaas booska kore booska kale oo ah 2x plus y equals 6 oo 3 x ka yahay waa halkan waa dhinacan marka x ka dhankiisa waa kan marka waxaan u turkeynaa 1 iyo 2 baltan inaga daaya tan xariiqdan inoo wada waxay noo geysaa dhibcida inoo geysaa booska saddexaad aan qaban lahay ayar dulqaata soo booska saddexaad baan geynay xariiqdii waxaan geynay dhibicdii booska saddexaad marka x ku waa 3 waa tan y-duna waa 6 dee war ma harina isku dhejinaa noo xariiqda qaadano dhab xariiqdii aan marinaynaa bal aynu aadan noo u muujina xariiqda xoogaa baad moodaa inay qarsoon tahay xariiqdaasaynu marinay gaduudan ee dheer ayaan marinay markaasi xariiqdii halkaa ayay martay su-aal baa la isweydiinayaa marka sidii oo kale war haddee wuxuu line-ku solution maahee maxaa dhacaya oo xalkii sidee noqonaya midda ka koraysuu noqonayaa mise meesha ka hooseysa haddana sidii oo kale ebertaan istaagaynaa eberti waa tan booskaan hoosaan istaagaynaa markaasaan waxaan leenahay haddii aan x eber ka soo qaadno y-na eber ka soo qaadno warku ma rumoobayaa haddaynu x eber ka soo qaadno y-na eber ka soo qaadno halkaan warku ma rumoobayaa x haddaynu eber ka soo qaadno y-na eber ka soo qaadno warkii waa beenoobi maxay tahay eber kama weyna 6 waa been cad eber hee 6 kama weyna hadday been warkii u noqday dhinaca ebertu jirta maahe dhinaca kale ayaan calaamadaynaynaa dhinaca eber jirta waa halkee waa meeshaan hoose hagaan calaamadaynaynaa marka dhinacaan koraan calaamadaynaynaa 1 iyo 1 xariiqahaasan ku xariiqinay qalinkaaga bensalkaad qaadanaysaa xariiqaad kala daalaysa xariiqda mar haddaad xariiqdid micnaheedu waxaa way area of the solution that's what we call area of maxaa lagu magacaabaa of the solution booskii xalka weeyaan markaasi waxay u ekaanaysaa hadhow of course waxaad iska marin doontaa highlighter waxay noqon doontaa booskaas ayaa wuxuu noqonayaa booskii xalka taas ku dayna inaan highlight garayno laakiin kulliga waa highlight garayn kadhaa ama xariiqdad ku wadaysa xariiqaha marka booskaas ayuu noqday booskii solutionka marka 2x plus y is greater or equal to 6 wuxuu noqday solutionkeedu sidaasuu noqday marka waad fahamtay marka hore increase la egta waxaad ka soo qaadaa inay isla eg yihiin wax xalli marna y-da eber ka dhig marna x ka eber ka dhig markaad heshay labada dhibcood xariiqdii mari markaad marisid waxaad istaagtaa meesha eberta dul istaag waxaad tidhaahdaa eber ka soo qaad inuu x ki y-du eber yihiin hadday eber yihiin warku ma rumoobaya eber iyo eber haddaan ku bedelo booskooda x iyo y-da hadday eber 6 kama weyna waa beenowday hadday beenowday dhinaca eber jirto ma xariiqayo dhinaca kale ayaan xariiqayaa halkaas ayaan joojinayaa halkaan xabana waxaan kaaga tagayaa homework waxaan rajaynayaa in aad xalisid waxaa weeyaan 3x tan kore iska daa tan kore waa midaan xalinay iska tirtaas 3x plus homework 3x number 3x plus 2y is less or equal to 6 waad iisoo qori kartaan youtube-ka iisoo gelin kartaan akhbaar ama wixii su-aalaad qabtaan waa iisoo gelin kartaan marka dambena insha allah waxaan siin doonaa meel aad igala soo xiriirtaan si aad problemkii ku dhiba aad iisoo weydiisaan ay khiyaartu waan salaamayaa sidaas iyo asalaamu calaykum waraxmatullah